اسكبلا wararka warbaahinta soo gaaraya waxay sheegayaan in maanta la doortay gudoomiyaha ku doorateen Cabdirashiid Yaqaac adina ahaan waxa wararku ay leeyihiin ka baxay doorashadaasi doorashada maanta dhacday waxay ahayd mid aan isku ogeyn waxa noo yimid khamiistii guddiga dhexaadinta waday ka shaqeynayay inay isku keenaan xisbiyada iyo noona gogol xaaraan sidii aan hawl qaban lahayn commissioner qaran si darasoo waxa dhacday doorasho gacan ku rimisa oo aanan diyaar u ahayn oo saaka u bilaabantay waa fadhiyay ma ka bixin oo laakiin waxa weeyay waa majority baa noqdo laga batay marka saasay ku dhacday ilaahayna waxaan uga rajeynayaa qarankan iyo dalkan inuu ku soo dabaalo xasilooni iyo nabadgelyo laakiin qof shakhsi anigu personally shakhsiyan uma diidani ninka odayga ah ee Cabdirashiid Yaqaac gudoomiyaha noqday laakiin waxa weeyay iyana wax sooreyna cidaan wax sooreyna waxay ahayd saddex xisbi qaran shacab weynaha reer Soomaaliland sidii markaa xisbiyada qaranku aanay raalli ka ahayn waxay noqonaysaa wax aad u adag markaa ilaahay waxaan uga rajeynayaa oo khayr marka saas ay u dhaceen markaad leedahay waxa waa doorasho gacan ku rimaysa ma gacan madaxtooyada soo gacan gelisay wax weey horta wax xaqiiqad haysa la sheegaa laakiin arinta anigu ma hubo inay madaxtooyada soo dhex gashay inay cid kale influence ku lahayd ma hubo ma cadeyn karo waxaan cadeyn karina lama sheego laakiin waxa weey xubnaha meesha joogay sidaas ku codeeyeen marka inay iyaga ka timid iyo in iyaga lagu soo qasbay taa anigu ma sheegi karo waxa wararku sheegayaan in xasan ahaan adiga laftirkaaga mar lagu balan qaaday gudoomiyaha markii aad gudoomiyanimadii doorashada maanta dhacday arrinta waxa ka jira waxba kama jiraan cid aan ii balan qaaday gudoomiyanimo ma jirin gudoomiyaha waxa idin u doorano waa aragnimo aqoon iyo karti aan ku dooranaba ma la xamiyaa xubinta la doortay xubinta la doortay waxa weeye wax ilaahay kaana mooyaan waniga kushina oo xubin kamid ah hadda maqaxay suurtagal tahay hada sharciga xeer 2001 waxa ku qoran guddiga komishanka qaranka waxa